dagaalka lagu soo qaaday saaka deegaanka boqdherkeen waa dagaal lagu talagalay in horjecel lagu dabargooyo waxaana mas'uul ka ah dowladda Soomaaliland ee ugu horeeya ninka macasha weyn la dowladda maamulada Abdiraxmaan Candaweyne marka hore bagarxajisku wuxuu ahaa garcab u ahaa odagii Sheekh Isxaaq waa ogeedeeno markii ceelka loo dhigay inankiisma muwaayib inankiisoo la qaatayba waan ogay garxajisoo dhiig raashin Isxaaq kuma jiro oo ma damqanayaan shalay tooreyski dana noo damqanaan nala dagaalamaane waa kuwa naga aamusay waa kasoo tashanana maantana inta ciidankii deegaanka soo qaadeen way yidhaahdeen toobad baan soo siinanaa ay dadkii deegaankana ciidanka dowladda lahayn waan keenaynaa afarta boqolaan goob kastaba keenaynaa manay keenin maantana waxay gaadhay heer dadkii deegaanka la xasuuqo oo nacayb loo xasuuqo garxajisoo wax bal sheegtay anuu odhamayna xukuumadda garxajis baa kala suulay waxaa noo sheegtiin haddii dee habarjecel nacayb idahayana noo sheega